أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحلقتني لحية تبنادية موضوعي كساب سنة كيف نخشع في الصلاة سيدابا إنه خشوعنا صلاة أين إلهي وتاغنا تبارك وتعالى قلبي إننا إنه سجيدنا شلو حينو بلوني أما إنه سوقورني أمثلة حية عن الصحابة تصاليال كساب سن صحابة سيدي أهايين معنا مركي صلاة تكنيان قار كميدا waxaa sidaa u leenahay saxaabadu waxay ahaayeen dadkii quraankan fahmay oo diinta laga deynay bay ahaayeen ikhwata iimaan dhowr tusaale oo kooban ilaa 10keenu waa 5 daqiiqo qalbigeena inuu bal 5 daqiiqo salaada ku xusuusino si aan ilaahay agtiisa xujadu inooga dhacdo culimadana aan loo oran amaam Allah maxaa dadka ugu cadeyn weydin qofkana in la rabo inuu isbedelo oo uu dhageysto وحلقتي لحية تبناد صلاة هذا سيء خشوع عيسى ولا ليال تساليا شمرك الله ورميو دتكي خير كبدنا وحاكم إذا عبد الله بن الزبير وعلي هذا كان إذا قام في الصلاة مركع صلاة يسوتاغو وحد موديس كأنه عود من الخشب يعني وحد موديس قري ayaad moodaysay tiir oo kala ah min al-khushu' khushuucda daraadeed sidii tiir oo kala ayuu noqon jiray aan dhaqdhaqaaqaynin wa kana yasjudu wuu sujuudi jiray mararka qaarkood marka waxa dhacday maalmaha kamida isagoo tukanayo sujuudsan ayaa ataa calayhi al-manjaniqu waxa deer hoobiyaha loo yaqaano oo aha marka waxa way dhagax weyn oo muslimiinta keenay gantaalka manjaniiqa la yiraahdo inta badan taariikhaha iyo sirada aad lagu faahfaahiya gantaalkaas ayaa lagu soo tuuray isaga rag uu la ku jiro waxa la yiraahdaa fa akhadha taa'ifatan min thawbihi wa huwa fi salah dhagaxii weynaa iyo gantaalkii wuxuu goostay qayb kamida maradiisa isagoo salaada ku jira la yarfa'u ra'sahu مرقرنا مدحيسا كر أمو قادنا وسجودي سوته سو سجود رصاص أيا جنتال كاسي كويمي مرضي بوقيب قوستي صلاة دي أيوتي هل مرنا كما أنو بحين يعني وحوي صلاة دي سين وعلى مذا سلامة من بشار نكي لورنجري وعلى نكاس سلام من بشار كان يصلي في المسجد بل تصالح عجائب كبضن فيري مساجد أيوكتو كان فانهدم طائفة من المسجد صلاة دي او لغو جرو او صلاة دي لتكنايو ايا وحا صوغو اي او سودومي مساجد قيب كاميدا دربي با سودومي حقي سريع وحالا يراهدا فقام الناس ضدك او دنبا كعيو عرري وهو في الصلاة لم يشعر لكن محمد ابن بشار صلاة دا او كجري اوغيد إن درب الدمي ين مساجك سنقضي إيه إلا كلا ياعي من موسى دريمين بالي معايا النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة صلاة يدا مشغول كلا ما بعرف فدو صلاة كجر يعني وحكستو كلا أردوات هالماميسا إلا إلهي تبارك وتعالى ربي أذرتك أنتهي مويان هدي قيل دعيسو إننا وحال غيا بايس كده مساجد سودومي هدي برمبريه اي مساجك سو دخغشو اما حبد بسدا اما جيري مساجك او سو غلو اسكا دامس يا ابيسو ني walba kadigu ka boodaya imaamka ugu horeeyay Soomaa والله kala yaacaya laakiin waxa weeyaan
يعني dadkaasi may dareemi jireen waynu soo sheegnay ninkii saxaabiga ee lugta laga goynayay taariikhdiisa waynu ka soo sheekeen waxa kale walaalayaal kuwa la mid ah oo marka waxa weey ragga iyaguna salaada aad iyo aad ka ugu khushuuci jiray oo runtii ajaa'ib ka badnaa waxa kamid ah ninkii loo oran jiray Saciid at-Tanuukhi wa taabici isagu marka waxa la yiri kana idha salla lam tanqati' dumuu'uhu min khaddayhi ala lihiyatihi mar allaaliye markuu salaada galo ilinta ka dareerta mar qura dhabankiisaasi mu engegaynin ilaa uu garkiisa uu ilintu iyo helmadu ay ka daadato dadkaasina ilaahay bay hortaagan yihiin oo waxay doonayaan waa janno waxay ka baqayaan waa naar inaguna ilaahay bayna hortaaganahay waxa rabnaana waa janno waxaan ka baqaynaana waa naar ogaada laakiin iyaguna dhaqankaasay lahaayeen in axadkood markuu salaada galo khushuucda iyo qalbigiisu siduu u soo jeedo ilinta ka soo dareerta dhabanadiisa intay qoyso ay garkiisa u gudbayso garkiisu wada qoyiyo waa runtii qofka iimaanka leh ay arintaasi wax ka bedelaysaa waxa kale ma la jiray mararka qaarkood yani ragii taabiciinta qaar kamida waxa la yiri ahadu taabiciin ama qaar kamida waxa la yiri annahu kana idha qama ila as-salah taghayyara lawnuhu mar allaaliye markuu salaada isu taago kalarkiisa iyo midabkiisa oo dhan ba isbedeli jiray wuu madoobaan jiray wuu isbedeli jiray markaas waxa weeyaan marka la yiraahdo waa maxay ayaa wuxuu oran jiray atadruna ma ogtihiin bayna yaday man aqifu war horta cidda aan hor istaagayo ma garanaysan yaan hor taaganahay buu marka salaada ku jiro yaan la hadlaya ahadkee baan hor taaganahay markaas oran jiray waman unaaji oo yaan la faqaya yaan la hadlaya wa Allah tabaaraka wa ta'ala anta waqif bayna al-malik al-muluk ilaahi tabaaraka wa ta'ala bad hor taaganta ilaahi baad la koodaysa oo la faqaysa oo la hadlaysa sida daraadeed iyo ikhwa qalbigaagu inuu soo jeedo laga maarmaan way waxa dhacday nin loo oran jiray Aamir ibn Abd al-Qays ayaa waxa lagu yiri atuhaddithu nafsaka fi salat warmarka salaada ku jirto naftaada salaada dhexdeeda ma kula sheekaysata su'aal buu ku celiyo ragii wuxuu ku yiri aw shay'un ahabbu ilayya min as-salati uhaddithu bihi nafsi oo ma wax salaadayda aan ka jeclahay oo kale ayaan kula sheekaysanaya naftayda ma waxaan salaada ka jeclahay oo kale oo salaada iga mashquulinaya ayaa jira su'aashaas ku celi markaas waxay yiraahdeen ragii inna la nuhaddithu anfusana fi salat annagu markaanu salaada galno marka qaarkood nafteeda waa kula sheekaysana adduun markaas su'aal wuxuu ku celiyo wuxuu ku yiri abil jannati wal huri wa nahwi dhalika tatahaddathun ma markaad jannada gashaan waxaad leedahay nafteeda aan kula sheekaysana ma jannada iyo guryaheeda iyo wabiyadeeda iyo anhaarteeda iyo qusuurteeda iyo ashjaarteeda iyo ni'amkeeda iyo xuural ciinteeda ma hawlahaasaad ka sheekaysaan oo naftiina marka aad kula sheekaysataan markaas aan la walakin bi ahlina wa amwalina maya xaasaskii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo guryihii iyo dukaamadii iyo meheradihii iyo xoolihii baan nafteeda warka anagu salaadii ku jirna aan ka fakarnaayo ku sheekayna qaala markaasa wuxuu leeyahay la in takhtalifu al-asinnatu لأن تختلف الأسنة فيا أحب إلي وحيري إن ورمه إسوكي دافان وحق اللي يقصر دفت حق اللي يقصره وحق اللي يقصر ورن وحق اللي يقصره أيان كجعلها أو كدور بذيا أنو الصلاة إلهي هرتاغن إن أنحاس أما عرور أما الدكان أما أدون أن حصوصته وحان كدور بذي لهابو يري in aanu taagan waramada iyo waxa weeyaan saafaha in lagu googooyo yaani runtii waa raac badan oo dadkii salafku ay lahaayeen waa 10keeni koobna waana xalqadii 16aad ee ku saabsaneed kayfa naqshu fi salat Allah inagu anfaco wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad